bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo si walbood nala socotaan, halkani waa Shacabka TV oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee dhacdooyinka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. qodobada wararka xiliga kani aan idin hayno waxa ugu waaweyn: Saciid Cabdullaahi Dani, hogaamiyaha maamulka Puntland, oo ugu dambeyn u dacwooday Ilhaan Cumar, iyadoo Ilhaan Cumar ay bilowday inay baahiso dhaleecayn ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba waxaan u eegi doonaa dacwadda uu Saciid Dani u gudbistay xildhibaanadaasi ka tirsan baarlamaanka dalka Mareykanka. waxaase la isweydiinayaa, Ilhaan Cumar waxay isku bedeshay danaha koox gaar ah in ay ka shaqayso xilli eedeymaheeda dhaliisha loo jeedinayay ay sii korortay. warbixin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. qodobada kale aan idin hayno waqtigani waxa ugu waaweyn: Hirshabeelle oo shaacisay doorashada kuraas taala dhanka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo doorashada ka bilaabanaysa magaaladaas. masala socota muwaadin in doorashooyinka xubnaha baarlamaanka intooda badan laga reebay kooxdii hakarka ahayd ee baarlamaanka soo dhibaataysay iyo dowladnimada Soomaaliya 5 sano ee la soo dhaafay. tiradii ugu badneed oo laga tuuray inay saaxadda baarlamaanka la dhisay ka mid noqdaan. warbixin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. qodobada kale ee wararkan idin hayno waqtigani waxa ugu waaweyn: waalidiinta shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee muslimiinta ah ee ku nool dalka Sweden oo ka cabanaya dowladda dalkaas oo caadeysatay inay markaasi caruurta ka kaxaysato waalidiinta. isku soo baxay ka dhacay Sweden ayaan eegi doonaa. qodobada iyo kuwa kale ayaan idin haynaa meel kastoo dunida ka joogtaan. kulanti habboon ayaan idin leenahay. halkani waa Shacabka TV oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee dhacdooyinka dalka iyo caalamka intiisa kale. doodeedu waxay ku saabsan tahay daawadayaal ra'yigiina saliimka ku soo cabiri kartaan. Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa iyadu markaasi waxay caadeysatay in ay dhaliil been ah ka jeediso dowladda Soomaaliyeed. iminkan waxay bilowday inay difaacdo Saciid Cabdullaahi Dani oo dib u dhaca doorashooyinka ee Saciid Cabdullaahi Dani, iyadoo ceebta ka dabalaysa ay eedda waxay u jeedinaysaa dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba Ilhaan Cumar talaabooyinka ay qaadaysa miyiin kuwa sax ah marka la eego matalaadii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku matali lahayd baarlamaanka dalka Mareykanka, balse iminka ay koox gaar ah dantooda ka shaqaynaysa, si gaar ah kooxda Oranjan. Dani oo la ogyahay fashalka siyaasadeed iyo qaladaadka baasan ee uu ku dhacay sanadihii ugu dambeeyay ay iminka waxay ka dhigaysaa mid aan qalad gelin, isla markaana isaga laga qaldan yahay. qaladaadka ay ku dhacaysa Ilhaan Cumar iyo dhaliisha ay yeelatay iminka waxay fakarkiina ah inuu soo gudbiyo qaybta hoose ee faalooyinka. channelka subscribe hadin ahado, muuqaalka like saara si faafiyo wararka oo gaarsiiya ummadda kale ee Soomaaliyeed si ay uga qayb qaataan dib u dhiska qarankani. waa inoo sidaas iminka aynu ku bilowno tafaasiisha wararka intaasi ka sii faahfaahsan. Hirshabeelle iminka waxay shaacisay qiyaastii 13 kursi oo taala dhanka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxay kadib hogaamiyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo gudbiyay marashaxinta ku tartamaysa qiyaastii 13 kursi oo taala dhanka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. doorashadaasi oo ah mid indhaha lagu hayo, iyadoo Guudlaabo uu weli ku sugan yahay halkaasi, isla markaana uu ka wado kulmo dhaxalgal ah. ay guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay wadaan qabanqaabada doorashada 13 kursi ee ka dhacaysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaa la diyaariyay goobta ay doorashadu ka dhacaysa ee loogu talagalay. haddii ay bilaabato doorashada qaybta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxa ay ka dhigan tahay in Hirshabeelle ay gabagabo u marayso doorashada 25 kursi ee taala magaaladaasi. hogaamiyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo markii ugu horeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah siyaasadda nabad iyo nolol u suuragelisay inuu tago magaaladaas ayaa dardar gelinaya howlaha maamulka iyo tan doorashooyinka. Maxamed Xuseen Roble iyo kooxdiisa ayaa ku jabay qorshihii ahaa in Guudlaabe laga hor istaago tagista magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si ay u dhacaan kuraasta taala magaaladaasi, balse dabinkaasi waa uu guul daraystay. dhinaca kale aynu eegno Ilhaan Cumar, xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dalka Mareykanka waxay isku bedeshay mid koox dana gaar wadata ay u adeegto, iyadoo markaasi iminka difaacaysa kooxda Oranjan ee Saciid Cabdullaahi Dani.
ilhaan cumar ayaa bilowday hashtag ama sidoo kale qoraallo ka kooban oo ay ku baahinayso baraheeda internetka halka sidoo kale khudbado ay jeedisay dhawanahan ay markaa ku weerartay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay soo hadal qaaday waxa kamid ah arrimaha doorashooyinka Soomaaliya dib u dhaca doorashada ee ka jirta gudaha dalka meelaha qaar sida Puntland ay markaas difaacaysa Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo markaas eedeymo u jeedinaysa dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya warar uu helay shacabka TV ila lagu kalsoonay inuu ka soo xignay ayaa tilmaamaya in Saciid Cabdullaahi Dani uu dacwad u gudbistay Ilhaan Cumar dacwadaasi oo ah inuu markaas ceebta haysata uu ka difaaco isla markaana eedeynta loo jeediyo dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya eedda guud ee Ilhaan Cumar ay jeedinayso ayay waxay markaa ku doonaysaa in ay Saciid Dani kaga bariyeesho dib u dhaca doorashooyinka Dani ayaa imika la hadlaaya inuu ka mid yahay ragga uu cunqabataynka ku soo rogi doono dowladda ama ay ku soo rogi doonto dowladda Mareykanka sida darteed maadaama 25 February go'aabsi uu yahay oo waqti kooban uu ka harsan yahay Saciid Cabdullaahi Dani iyo kooxdiisa ayaa sameynaya inay ka sii gaashtamaan ama ay difaac ka sii galaan talaabooyinka suurtagalka tahay inay kaga timaado dhinaca dowladda Mareykanka haddaba su'aalaha la isweydiinayo waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar ma waxay isku bedeshay mid ka shaqeysa danaha koox gaar ah ama mas'uuliyadii qaranka iyo sidoo kale waxyaabihii kale ay ku mataleysay Soomaaliya marka la eego kamid ahaanshaheeda dalka Mareykanka oo dad badan Soomaaliyeed ay ku farxeen doorashadii ay ku soo baxday wili waxaa naga daawanaysan daawadayaal shabakada wararka shacabka TV geesta kale marka aynu eegno rag badan oo haakar ahaa isla markaana siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa iminka laga suurinayaa baarlamaanka iminka dhismihiisa socdo iyadoo qaar badan oo kamid ah raggaasi tartanka doorashada laga reebay waxaa kamid ah ragga laga reebay doorashooyinka ninka lagu magacaabo Axmed Macalin Fiqi Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isagu laftirkiisa ah muddooyinkii ugu dambeeyay mid mucaarad ku ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ragga kale ee baarlamaanka laga dhaxreebay waxaa kamid ah gabadha xildhibaanada ahayd ee ka tirsaneyd baarlamaanka qaybta koonfur galbeed ka timaada Xaniifo Xaabsade waxaa kale oo baarlamaanka laga reebay ninkii lagu magacaabi jiray Ilyas iyo sidoo kale senator Xuseen ninkii lagu magacaabi jiray kooxda kale laga reebay baarlamaanka hadii aanu sii wadno waxaa kamid ah Cabdulqaadir Maxamed Nuur ninka lagu magacaabo ee dhawaan Roble uu ka dhigtay wasiirka gaashaandhigga kursigiisa waa uu waayay saaxiibada kale ee baarlamaanka laga tuuray ee laga dhaxsaaray siyaasadda waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo Cabdirashiid Ashiiqalow oo wasiirka batroolka ahaa kaasi isaguna dhanka mucaaradka bari ugu dambeeyay aad ugu muuqday ragga kale baarlamaanka laga tuuray waxaa kamid ah Cabdiwali Ibraahim Muudey oo isagu markaasi dhanka Roble muddooyinkii ugu dambeeyay la saaxiib ahaa isaguna baarlamaanka waa laga tuuray shakhsiyaadka kale ee baarlamaanka laga tuuray iyaguna saqiir siyaasadeed noqday waxaa kamid ah sidaan xogta ku helino ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Carab oo isagu ah wasiirka waxbarashada ee kooxda Roble waxa kale isaguna la tuuray sidaan wararka ku heleyno Maha Salaad balse naftu ay ku dabayar tahay kaasi oo haatan ku sugan dhanka magaalada Dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka Galmudug halkaasi oo kursiga u doontay qorshahan waxaa ka dambeeya siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo helo jiiral cusub oo dhiigooda nadiif yahay oo aan u baran inay xaraanta cunaan isla markaana dalka iyo dadka u adeegi kara haddaba muwaadin adigu sidee baad u aragtaa in baarlamaanka laga dhex saaro shakhsiyaadkii ka soo macashay baarlamaanka dhowrkii sano ugu dambeeyay wixii fikirkaada ayaad noogu soo gudbin kartaa qaybta hoose ee faalooyinka gabagabadii marka aynu eegno waalidiinta Soomaaliyeed iyo dadka kale ee muslimiinta ee ku nool dalka Sweden ayaa ka cabanaya talaabooyin daba joog ay qaaday dowladda dalkaasi oo caruurta ay kala wareegayso waalidiintii dhashay dowladda Sweden arintani waxay dood kaga dhigaysaa in daryeelkii xuquuqda ay ka soo bixi waayeen qaar kamid ah shakhsiyaadka caruurtooda lagala wareegay balse qaar kamid ah Soomaalida oo toddobaadkan dhigayay isku soo baxayo ayaa ka cawday dhibaatada baaxadda leh ay kaga timid dhanka dowladda Sweden Mareykanka iyo dowlado kale reer galbeed ayaa iyaguna dhibaatooyin caynkaasi oo kala ah kula kaca waalidiinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool dhowrkii sano ugu dambeeyay warkii aad kala socoteen daawadayaal shacabka TV waqtigani waa naga inta wad ku maasantiin daawashada wararkeena waa inoo qaybaha kale ee wararka gobolba iyo goor kasta ku xirnaada shacabka TV oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo caalamka intiisa kale waa inoo qaybaha kale ee wararka nabadgeliyo